kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal tabinteena waxaan ku eegi doonaa safarka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre uu ku tagayo magaalada caasimadda ee dalkaasi Kenya Nairobi. Xamza ayaa tan iyo doorashadiisii xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu ku tagayaa socdaalkiisa ugu horeeyay magaalada caasimadda ee dalka Kenya ee Nairobi, asagoo si weyn loogu soo dhaweyn doono gegida diyaaradaha ee Jomo Kenyatta. Xamza kuma hakan doona kaliya Nairobi, waxa uu safar dhanka dhulka u gali doona magaalada Garissa oo deegaan ahaan uu ka soo jeeday oo dadyo fara badan ay u mashxaradayaan hareeraha wadooyinkan ay u istaagi doonaan soo dhaweyntiisa. maxaa ku soo beega xilligan Xamza booqashada magaalada Garissa? wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan Xamza Cabdi Barre hooyadii inay ku duugan tahay magaalada Garissa, taasina ay muhiimada koowaad siinayso in markii ugu horeysay uu booqdo asagoo ra'iisul wasaare ka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. haddaba ma booqan doona mise socdaalka kadib ayuu tagi doonaa qabriga hooyadii ee ku yaala magaalada Garissa, ayadoo aan ognahay magaalada Garissa musiibiyo iyo rabaani inay dhawaantan ka dhaceen, kuwaasi oo biyo xireen ku yaala dalka Kenya ay ku soo goosteen isla mar ahaantaana ku dhawaad 80 ruux ilaa iminka lagu laayahay raqi ruux. si kastaba ha ahaatee Xamza Cabdi Barre ayaa odayaal dhaqameedyadiisa ugu yeeray sida wararka aanu ku helino magaalada Garissa, ayagoona kala hadli doona colaadinta beesha daarood uu ku hayo, taasi oo sababtay in guud ahaan taageerada lagala noqdo Xamza Cabdi Barre tan iyo markii uu noqday nin markaasi u alalaasay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku casuumay talada Soomaaliya, taasi oo beelweynta daarood gabi ahaanba ay dhammaantooda ay u muuqdeen inay ka qajileen la hadalka una bixiyeen magaca marxuum. Xamza ma iska meeri doonaa dhaqan xumida iyo sidoo kale wararka dhawaan ka soo yeertay in Soomaaliya ay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare ka sii ahaan doonaan asaga iyo Xasan Sheekh Maxamuud? hadalka dhawaantan ka soo yeeray ayaa guud ahaan saamilayda siyaasadda Soomaaliya waxa ay ka muujiyeen warwar xoogan, waxa ayna u qaateen Xamza Cabdi Barre inuu yahay nin lagu adeegto, isla mar ahaantaana uu noqon doono mas'uulkii ugu horeeyay ee beesha daarood ka soo jeeda, kaasi oo loo adeegsada in beeshiisa markaasi darbi xoogan looga dhigo. daawada halkan haddaad nala soo gaadhay waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. fadlan haddaad nagu cusub tahay na soo follow garee muuqaalkan si meel fog u gaarana asxaabtaada la wadaag.